شرقري waxaan rabaa dadka cunsuriyiinta ah ee siyaasiyiinta ismooda ee umada qaribay inay gaarto fariintayda ee fadlan gaarsiiya muuqaalkan especially fiqh la gaarsiiyo sheerta ku qabta jarar iyo jilaa oo sheerta ku qabta شرقرية وليست شرقرية عدك يا إذن كوجابن شرقرية مليه دقة أنكم مغلق عنصري especially أتاقرينا يدك مليه ضمير يدرين أنكم دقة يست عنصري دونا إنه نقعرب ترى سوماليا هاي مشر قريسان وايه ايشر قري مركله هذا ندي سلام يا مركله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته walaalay jireerti iyo jiraada ahaayo meel kasto dunida ka joogtaan waa walaalkiin Cabdishakuur Shaasha maskiinkii jireerka ahaa waxaan halkan u soo fariistay oo live kan u soo fariistay inaan ka hadlo arin cunsuriyad ku saabsan oo Ahmed Macalin Fiqi oo ka tirsan xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya uu u geystay dadka aniga aan ka soo jeedo ee jireerta ah oo aan aaminsanahay in dhowr mar oo kala duwan lagu xadgudbay dadnimadoodii madax banaanidoodii xuquuqdoodii muwaadinimo iyo toodii jiritaan haddana wali ay soconayso waxaan rabaa inaan arintiisana ka hadlo arrimo kale oo soo raacayana aan si guud uga hadlo haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ii ogolaado waxaan rabaa inaan marka hore Soomaali oo jareer iyo jilaa ka kooban la wadaago oo aan u sheego hawiye dir daarood iyo digil iyo mirifle aan u sheego inay fahmaan inaysan iyagu oo kaliya ahayn muwaadiniinta dalkan iyo milkiilayaashooda balse dalkan laga leeyahay loogana muwaadinsan yahay laakiin duruufta iyo dagaal la'aanta iyo dariiqa saxan oo aan qaadnay oo aan dhiigga islaamka iska nabadgelinay ay sababtay in maanta naloo bixiyo magacyo ay ka mid yihiin looma ooyaan iyo waxyaabo aan yani u wanaagsanayn afka oo 24 saac lagu cunsuriyeeyo taas oo aad moodo inay muujinayso in la doonayo in dadkan jareerta ah maalin walba dab futada looga qabto si aakhirka ay u kacaan waana aaminsanahay haddii dadkan ay kacaan in wax badan ay baaba'ayaan waxaan Allah ka baryayaa kuwa dhibaatada wadana inuu alla soo hanuuniyo kuwana uu alle xaq tuso iyagana shalay waxaan dhageystay khudbad uu jeedinayay Fiqi xalay waqti dambe dhageystay xalay ilaa saakay indhay in dhafar badan ka muuqda u maleena waa arkaysan indhayga u jeedaan maanan seexan hurdo toos maanan seexan waaga sidee kugu bariya ayaan lahaa oo marabin xilligaas inaan hadlo waqti dambe yahay dadka badan oo inta badan igu xiran ee walaalaha ila socday tooska ila socdana de habeenay u ahay waxaan rabaa inaan idin dhageysiyo hal mar hadal uu jeediyay shalay تعبير يرنا عن كبعيه إلى دقيست إن شاء الله علينا وحاوي بركعياش نكو قابل سوي بطور ماجو مركو بركعياش سوق علينا رخصوها يستا أسقى اسم الصحة ضدكي قبل كبنادر رسمي قالها مركي رأي وضع عبريانا وحلي أنا اللي صومروا سفي عرو دقيستا aniga caliyare iyo fiqi dhexdooda waxba igama galin laba nin oo habar gidira waaye oo ku heshiiyay in xaqeena siday ugu tuman jireen ay ugu tuntaan aniga isaga iyo kuwa la midka ah waxaan ka aaminsanahay dhig miirato
ugu talagalsan dadka jareerta ah inay dhiigooda cunaan waayo waa dadkii ogolaaday 270 iyo dhowr xildhibaan inay jareer ka ahaadaan 7 xildhibaan waa dadkii ogolaaday 350 xildhibaan oo aqal hoose iyo aqal sare leh inay jareer ka noqdaan 8 xubnood dadkii ogolaaday waay ma aaminsani inuu aniga tayda ka shaqeynayo dantayda ka shaqeynayo ma aaminsani laakiin waxaan u ogahay inuu yahay calooshiis u shaqeysta tiisa ka shaqeynayo marka hal arin ma rabo inaad u fahantaan aniga caliyare iyo fiqi dhexdooda laba nin oo wada dhashaba waxba igama galin laakiin kalimadan uu adeegsaday uu ku hadlaayo ee cunsuriyada ah waxaan aaminsanahay in la isaga daba imaanayo maalintay noqotoba videogan wuu record garaysnaanaya muqdisho dadka iska leh waa la yaqaanaa muqdisho taariikhay leedahay muqdisho ma ahan 1991 ilaa 2020 muqdisho ma aha 1960 ilaa 2020 muqdisho ma aha 1950 ilaa 2020 muqdisho ma aha 1920 ilaa 2020 muqdisho ma aha 1900 ilaa 2020 muqdisho way ka cumri iyo fac weyn tahay dadkii loogu yimid ee muqdisho lahaa ee deganaana waa la yaqaanaa dadka muqdisho degan dadkii soo dhaweeyay ee muqdisho haddii cidin sheeganayso ee saxda ahaa maanta waa caasimada dalka Soomaaliya qof kastoo Soomaaliya iska leh laakiin hadday cid gooniyo sheeganayso waa dadka jareerta ah dadka ka barakiciyay ayuu ka mid yahay fiqi ee qoriga u qaatay ee beebayaasha ku garaacay ee dhishiikayaasha ku garaacay ee dadka masaakiinta ee jareerta ah muqdisho ka barakiciyay ee haweenkoodii kufsaday ee baabi'iyay يعني dadkii aad shalay baabi'isay ee aad xoogtay ee aad dhacday ee aad hantidooda qabsatay adiga oo gurigoodii ku sugan fiqi adiga oo guri ceel ka yimid nin jareero oo muqdisho ku sugan inaad maanta tiraahdo waa barakace muqdisho anaa kale waxaan u arkaa in qoriga iyo awoodda maanta aad maciinsanayso ay ku gaarsiisay waanse hubaa maalin aan maanta ahayn in warkan la isaga daba imaanayo jareerta muqdisho degan ma ahan dad muqdisho adiga aad ka leedahay barakacana inaan fahanaa haboon dadkan aad baabi'iseen oo aad hubka ku barakiciseen ee beerahoodii aad dhacdeen muqdisho labada shabeellaha ku teedsan xaaladaha ka jiraan ogna beerahoodii aad dhacdeen hantidoodii aad dhacdeen oo aad barakiciseen ayaad adigu leedahay anaa maanta kale muqdisho yaa waayo cidda aad leedahay dadka muqdisho asalka ah anigu waa ogahay isaga hadduu barakace dhaho in dadka qaar ay dhihi doonaan barakace jareer kaliya miya waa ogna 99% dadka barakacsan ee ama abaaraha ka barakacay ama fatahaadaha ka barakacay ama dagaalada ka barakacay ee muqdisho ku dhibaatoonaya iyo gobolada dalka ku dhibaatoonaya waa jareer dadku ula jeedana waa jareer sabab kalena ma aha dadka ugu badan ee farmaajo taageera jareera adeer jareertu adooma aad idinku leedihiin ma aha fiqiyow waa dad aragti leh ciday doonaan taageeri kara ciday doonaan ka hor iman kara haddii qof jareero uu banaan baxo oo aragtidiisa muujiyo waa barakace maskiina oo aan Soomaali ahayn laakiin haddii nin kugu reera uu banaan baxo waa muwaadin wadani ah Soomaa wada helaariyo waa kaaga muwaadinsan yahay muqdisho ninka jareerka waana kaaga Soomaalisan yahay Soomaaliya ninka jareerka ma rabin inaan u hadlo sidaad u hadashay laakiin waan u hadlaaya adoo guri ceel ka yimid oo la ogyahay muqdisho iyo guri ceel inta kiiloomitir ay isu jiraan in nin jareera ama hooyo jareera ama wiil jareera oo muqdisho jooga aad ka sheegatay inaad muqdisho ka leedahay waa ayaan daro ee fiqiyo isku laabo aniga inta iga qusaysa hadalkan waa in dadkaas jareerta aad u gaftay oo inta bal fiiri qof aad dhacday hantidiisii barakicisay hub ku barakicisay siyaasad ku barakicisay dhaqaalo ku barakicisay inaad oo gurigiisii joogto ya inaad maanta tiraado anaa guriga kale ila dhageysto waa idin baryaaya ila dhageysto ninka siyaasiga sheeganayo wuxuu ku hadlaa ila dhageysto barakacayaasha ninka u qaabilsan waayo Dr. Maajo
markuu barakacayaasha soo kicinayana ruqsuu haystaa asagaa isfasaxa dadkii gobolka banaadir ee rasmiga ahaa markay ra'yigooda cabirayaanna wuxuu leeyahay aniga in la soo maro war barakacayaasha ma oroma barakacayaashu miyaysan xaq u lahayn inay mudaaharaadi karaan inay bannaan bixi karaan inay cid taageeri karaan inay cid ka soo horjeesan karaan miyaysan xaq u lahayn dadka barakacayaasha maxay tahay wuxuu ku hadlaa hadalkan si life u yiro toosa waad gali kartaan page-kiisa oo anaa soo busti gareeyay daraadna hadal sidan la mid uu soo qoray ayaana wayt markuu banaan baxayana bustigu waa soo dhigay dadka uu maanta leeyahay iska soo horreysiiyay caruur waliba caruur oo uu garan waayay caruur baalashlayaal intuu iska soo horreysiiyay hadday xabad dhacdo jareerta ha ku dhacdo wallaahi oo billaahi oo tallahi hadday xabadi dhacdo jareerta ha ku dhacday ka ahay muuqaalka waad fiirin kartaan barnaamijii darag axmed macalin fiqi uu horkacaayay waad fiirin kartaan caruur yar yar oo baalashlayaal oo jareeru iska soo horreysiiyay oo gabaad ka dhiganay warbaada jareer muqdisho kale ma soo ogid miyaa in jareerta adiga aad muqdisho ku barakacisay dunida meerta waayo ogow hadday maanta barakac yihiin tomorrow adaa barakac noqon doona oo xaqiiqa wallaahi oo billaahi oo tallahi kaftan maaha haddii anigii adi aan wada noolaano dunidaan wada joognana waa kugu hadal siin doonaa maalintaas haddaan dhintana taariikhdaa qormaysa taariikhdaa ku hadal siin doonto oo aan kaa horreeyo haddaad iga horreysana kuwa kula midka ah ee kula aragtida ah ee kula fikirka ah ee canaasiirta ah ee cunsuriyiinta ah ayaa arki doona xaqiiqda hadallada aad ku hadlayso waana inaad raaligelin cad ka bixisaa adiga iyo kuwa kula midka ah ee caadaystay kelimadahaas iyo kuwa aan waxba dhaamin fiqi muqdisho dadka iska leh ee asalka ah waa jareer qabaa'ilaad kala duwan leh maanta ciddii doonto muqdisho ha sheegato cidday doonto maanta muqdisho ha sheegato muqdishada aad leedahay asalkeedii aan originaalkeedii aan ahay magacyada degmada muqdisho magaalo madaxda dalka muqdisho gobolka banaadir degmooyinka muqdisho ku yaala xitaa micnahooda fasiraadooda ma taqaanid kuwa qaar wallaahi oo billaahi oo tallahi inaadan micnahooda aqoonin oo aadan fahansanaynba wax laga wado waxaad ku garaadsatay adoo adeerada iyo awowayaasha xabad ay muqdisho ka ridaayaan oo hooyooyinkii jareerta ahaa iyo ay kufsanayaan gabdhahoodii oo ay barakicinayaan aad ku garaadsatay oo aad siyaasad ku soo gashay caqligii shalayana ilaa iyo maanta kaa dhici guuxaaya laakiin hadday jareer 7 xildhibaan ku leeyihiin baarlamaanka Soomaaliya sidaadoo kalena ay qaaqlayaal ahayn oo marka aad qaaq tiraado aysan qaaq ka daba dhahayn ana wallaahi oo billaahi oo tallahi qaaq ka daba dhahay kabta aad gashatay xaar kalena ana kula gashanaay haddaad xishoon weydana anaanan kaa xishoonayn anaanan wallaahi oo billaahi oo tallahi kaa xishoonayn anaanan kaa xishoonayn oo xaqiiqa waxaas aad samaysay ee aad tiri wallaahi oo billaahi oo tallahi haddaadan raaligelin ka bixin waxay kugu noqon doontaa maharto weligeed ku daba taagnaata adeer majareer aad muqdisho ka leedahay mise Soomaaliya ka leedahay bal dad waaweynaa dhagaysanaya u sacabtumaayo hool weynaa la joogaa markuu waxaas ku hadlaayo hal nin intuu soo istaaga ma dhahayo waad qaldan tahay way sacbinayaan way qoslayaan waxay u arkaan nin wax wanaagsan sameeyey war hal nin oo caqli leh kuma jirin miya dadkaas hal gabar oo caqli leh kuma jirin miya hal hooyo oo caqli leh kuma jirin miya adeer jareerta waa dad fikir leh aragti leh farmaajaha aad jareerta xijinaysana dad badan oo jareera mucaarad ku ah
dad kaloo jareerana waa taageersan yihiin haddii ninkii jareera oo farmaajo taageero uu yahay maskiin aan soomaali ahayn oo aan muqdisho iyo soomaaliyaba lahayn de waa aragti xun haddii soomaaliya iyo muqdisho lagu yeelanayo qorina ogow dadkaygaad ku dhiirigelinaysaa inay dagaalamaan oo qoryo qaataan ogow dadkaygaad ku dhiirigelinaysaa inay sameeyaan wixii 1991kii adiga iyo dadkaaga ay sameeyeen hadday qoryo qaataanna buushashka maanta ay degan yihiin aad ku liidayso way uga dhex tagi karaan muqdisho laakiin daaraha dhaadheer iyo dabaqyada muqdisho ku yaala iyo hantida muqdisho maanta taala boosaska dadkii masaakiinta ay jareerta lahaayeen ee qaybna aad ka dhacdeen qaybna aad ka xoogteen qaybna aad ka iibsateen hantida maanta taalo wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaysan online ogow waxaad jareer ku dhiirigelinaysaa inay dagaalamaan hadday dagaalamaanna inaysan hantidaas onlaynin ogow si xaqiiqan kula hadlaayo aniga dhabtaan ka hadlaa cidna kama gabado qof aan aniga sharaf ii hayninna sharaf uma haayo qof kasta uu yahay qof kasta oo aan aniga iyo dadkayga sharaf u hayn aniga sharaf uma haayo laakiin ogow inaad jareer leedahay dagaalama ogow inaad jareer leedahay soomaalinimada waxay ku jirtaa in la dagaalamo fiil waa aragti in badan oo canaasiir ay ka guucayso nin jareera hadlaya wuxuu leeyahay farmaajan taageersana jareera ka taha la leeyahay what the hell are you idinka kuwiinaan farmaajo taageera ee hawiyaha leh ee daaroodka leh ee digli mirifla leh qaybtooda jilaaca ee dir leh marka ay farmaajo taageeraan sida aad jareerta ugu fakfakanaysaan maad ugu fakfakataan